السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ay ka joogaan. Baaritaan dheer markaan u galnay waxyaabaha fashiliyay dowladda Puntland waxaa ka mid ah Cabdiweli Cali Gaas inuu cusbitaalka Brian Lane Hospital oo ku yaal magaalada Buffalo, New York uu galay 33 jeer iyo 22 jeer oo jakaba. Cusbitaalkaas oo ah mental health hospital oo ah dadka dhimirka qaba cusbitaalkoodii. markaan la xiriirnay Mark Edward cusbitaalka managerkooda ama cusbitaalka CEO-giisa wuxuu noo cadeeyay Cabdiweli Cali Gaas oo dhashay January 1, 1956 inuu cusbitaalkaas yimi 33 jeer 22 jeerna uu jeerka u yimaaday. taariikhdu markay ahayd January 26, 2001 ilaa July 24, 2003 Cabdiweli Cali Gaas cusbitaalka wuxuu tagay 33 jeer iyo 22 jeer. taas waxay cadeynaysaa waxyaabaha fashilay dowladda Puntland in ay taas ka tahay wax aad iyo aad u weyn una baaxad weyn. Cabdiweli Cali Gaas uma min maayo inuu xil qarameed ama xil dowladeed inuu qaban karo maskaxiyan ahaan capability ahaan capacity ahaan. Mark Edward wuxuu noo sheegay dawooyin badan inuu u qoray Cabdiweli Cali Gaas marar badan. daawooyinkaas waxay leeyihiin side effectgaas oo ah dhafoorada oo madmadoobaada iyo caloosha oo weynaata. labadana waan ku haynaa Cabdiweli Cali Gaas. haddana taariikhdu markay ahayd January 29, 2015 Cabdiweli Cali Gaas wuxuu wacay Dr. Maxamed Jaamac oo yahay xafiiskiisu gaalkacayo 4 jeer buu wacay. 4 jeerna wuu tegey. 4 jeerna daawooyinka dhimirka baa loo soo qoray. marka waxaan leenahay aan baa qudraynaa baarlamaanka Puntland. waxaan leenahay arrintan dib ugu noqda kana fiirsada nooshin wayna keentaan. Cabdiweli Cali Gaas uma qalmado xilka Puntland xag caafimaad xag capability iyo xag capacity. sharciga Puntland wuxuu dhigayaa madaxweynaha haddii lagu soo ogaado 15 sano ama 20 sano ka hor inuu xanuunsaday xanuunkaas oo ah dhimirka in xilka laga qaado. sharciga Puntland baa dhigaya qodobka Puntland oo ah 11C.1 ama ah hal dhibic hal. sharcigaas oo la dhigtay 1998. sharcigaas oo ay qorteen beelooyinka Puntland oo dhan ay ay ka tahay beesha Biciidahan Cali, 2 ay ka tahay beesha Cumar Cali, 3 ay ka tahay beesha Siwaaqroon Gardafu, 4 ay ka tahay beesha Cawlahan Cali, 5 ay ka tahay beesha Aadan Cali, 6 ay ka tahay beesha Axmed Harti Murro Casade Dishishle, 7 ay ka tahay beesha Carab Saalax Naaleeye, 8 ay ka tahay beesha Maxamuud Suleymaan, 9 ay ka tahay beesha Warsangeli, 10 ay ka tahay beesha Galkase, 11 ay ka tahay beesha Reer Maxamuud, 12 ay ka tahay beesha Amaanle. sharcigaas wuxuu qabanayaa Cabdiweli Cali Gaas in uusan ahayn madaxweyne goboleed iska daayay xataa beeshiisa uu ka dhashay uusan xil u qaban karin. waayo caddeynihii baan haynaa. cusbitaalkaas waxaa la yidhahdaa Brian Lane Hospital wuxuu ku yaallaa Buffalo. adreskiisaan haynaa. adreskiisu waa 1263 Delaware Avenue, Buffalo, New York. waxaanu haynaa Mark Edward cusbitaalka managerkiisa ama CEO-giisa lambarkiisa waxyaabihiisa. cadeymahaas oo dhan waxaa balan lagu ah oo aan u gudbinaynaa website-yaasha Soomaaliyeed, raadiyoyaasha, TV-yaasha si loo xaqiiqsado. Puntland baarlamaankeeda waxaan ugu baaqaynaa in ay mooshin keenaan. waayo anagu shacabkii waxaan ahay Puntland. dowladduna sideedaba shacab haddii uusan jirin dowlad ma jirto. shacab haddii uusan jirin dowlad ma jirto. dowladdu sideedaba waxay ku dhisan tahay waa shacabka. adaguna shacabkayga waxaanu xaq u leenahay Cabdiweli Cali Gaas xaaladiisa caafimaad 2001 ilaa 2004 inta meelood uu ka tegey cusbitaalka Brian Lane Hospital oo Buffalo, New York ku yaal inuu ka hor caddeeyo baarlamaanka Puntland. caddeynihii baan anagu haynaa waa kuwaasa.
waxaan qorinayno maaha mark edward lambaraysan haynaa دكتور محمد جامع وقال تعالى كل أنت جربتي يداويك وقاتي قالوا هنا عدني لفروض من المال عروش ويناته قالوا هنا حتى إن شاء الله تعالى وندرنا وحنقدرنا برلمانك بنتلان برلمانك فدرالك برلمانك فدرالك وحو أي شغل زوجتهاي إن وكما سون نقضه قبل الصومالي كديره يودك حرك وهي وحيين يوحي صومالي إن شاء الله تعالى ودرنا سنقول اختيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.